akhyaar sharafta leh soo dhawaada insha Allah marka waxaynu bilaabanaynaa xiisadeena hadii Ilaahay yiraahdo oo aynu kaga hadlaynay MetaTrader 4ka iyo sida loo isticmaalo marka su'aasha ugu horeysa qof isweydiinaya waxa weeye MetaTrader 4ka sidee oo la soo degi karaya marka MetaTrader 4ka maxay qaabkeed oo la soo degi karaysaa in aad halkan aad ku qortid MetaTrader 4 oo aad maxay aad halkan kala soo degtid ayaad isku dayaysaa page-ka guud ee MetaTrader 4 marka halkaas waa qaabka labaad oo halkan aad kadibna download aad dhahdid waa hagaag aad markaa download garaysatid ayaad isku dayaysaa hagaag qaabka marka waa qaab okay qaabka labaad waa inaad shirkadii tagtid ama brokerkii tagtid kadibna aad kala soo degtid brokerkii platforms dhahdid aad la soo degtid okay marka laba qodob baynu tilmaamnay intaanan MetaTrader 4ka u gudbin oo ahaa haddaad rabtid suuqan dadka lacagta ka sameeya ama ka shaqaysta mobile kuma shaqeeya ee waxa suuqa lagu qiimeystaa ama lagu shaqaysto waxa weeye waa maxay waa waxa loo yaqaan computer ayaa la isticmaalaa marka mobilka kaliya waxa loo isticmaalaa for emergency reasons inaad maaragtay adoo suuqa ka maqan oo kale aad gashid ama wax la mid oo kale ayaan maxay aynu isticmaalnaa mobilka laakiin majority of the times waxa aan isticmaalno waa maxay waa computerka ayaynu isticmaalnaa hagaag marka labada qodob hadaynu isla fahnay ma sha Allah waxaynu marka hadda marka u gudbaynaa hadii la yiraahdo MetaTrader 4ka sida loo isticmaalo marka MetaTrader 4ka markaan ku leeyahay waxa arkaynaa from basic to advanced macnaheedu levelski oo dhan ayaynu insha Allah hadii la yiraahdo aynu arkaynaa hadii la yiraahdo oo ma arkayno kaliya in basic marka sometimes hadaad isleedahay hadaad ma hore wuxuu taqaanay waxa laga yaabaa inaad qayb kugu cusub aragtid insha Allah hadii la yiraahdo marka mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waxaanu marka hadda share gareysanaynaa hadii la yiraahdo maxay MetaTrader 4ki ayaynu share gareysanaynaa marka I hope inaad aragtaan MetaTrader 4ka qaybta chat-ka fadlan iiga jawaaba MetaTrader 4ka waa aragtaan Soomaa okay ma sha Allah okay waad aragtaan okay perfect waaya marka MetaTrader 4ka marka aynu tilmaamno arinta ugu horeysa waxaan idinku yiri halkaan waa window-kii meeshii maartay ama ka yareen leed ama ka xiran leed ama ka bixin leed ka soo dejin leed halkaana waxaad ka arkaysaa beerka ku furan sida hadda aniga waxay furan Australian dollar USD halkaan waxa ka arkaysaa akoonka noocu yahay shirkadda iyo akoon lambarkada halka ka arkaysaa marka waxyaabahan akoon lambarka iyo hadii akoonkaagu real yahay waa xasaasi inaad meel public ku share gareysid marna lama rabo ama dad tustid akoonkaadaas waa akoonkaadi sirtaadi weeye marka waa inaad akoonkaas oo kale waxyaabaha xajinaysid waa inuu kamid yahay arinta labaad oo aynu aragnay waxa kamid ah ama rabno inaynu aragno waxa kamid ah inaynu bil wax ka fahanno xaqan lacagaha sida u soo gagashan lahayd halkan waxa la yiraahdaa maxay market watch baa la yiraahdaa halkan market watch marka waxa loogu talagalay inay ku soo galaan lacagihii aad trade ku trade gareynaysid marka lacagta rabtid halka waa ku qori kartaa hadda salahan waxaad dhigi kartaa CAD JPY Soomaaliya lacagta soo gashan kartaa arinta labaad haddaad rabtid inaad si guud iyagoo dhan soo wada geliso waxaad dhigi kartaa maxay show all baa dhigi kartaa haddaad rabtid iyagoo dhan wada qarisin waxaad dhigi kartaa hide all Soomaaliya marka taas oo kale hadhowna waad qoran kartaa CAD JPY waxaad dhigi kartaa euro USD Soomaaliya euro USD sorry waa inaan maartay hash raaciyo sababta akoonkan ECM weeye euro USD akoon kale uma baahna in hash la raaciyo akoonada inta badan variable spread-ka ah uma baahna ama standard account-ga uma baahna marka halkan waxaanu ku arkaynaa maxay bearish meesha ka soo gashan lahayd weey bearish hadii qayb ka maqayn waxa dhahay kartaa maxay symbols baatay kartaa right click symbols kadibna bear kartid baa soo gashan kartaa waxa dhigi karnaa kan soo gali kana soo gali laba oo maartay Australian dollar ay raacsan soo gali waa arta labadiiba inay noo soo galeen xagan marka waxaan isla garanay bearish-ka ayaa soo gala hagaag okay qodobka waa isla fahmay marka waan xireynaa kan marka waa market watch bearish-ka ayaa laga soo gashaa sidoo kale halkan wax muhiim oo kale ayaynu ka arki karnaa qodobka muhiimka ka arki karnaa waxa weeye inaad aragtid spread-ka lacagtan saaran hadda lacagtan waa aragtaa euro USD waxa saaran spread-keedu 10 senti ama 10 points baa saaran 10 points waxay ka dhigan tahay hal bib bay ka dhigan tahay marka lacagtan hal bib baa saaran lacagtan waxa saaran 25 points waa laba bib maxa labada bib waa labadii bib uu ka faa'iideeyay maxay qofka brokerka labadii bib uu ka faa'iideeyay way ma fahamtay oo u saarnaa isaga okay way marka taa waa isla fahnay yes
perfect haga spread ka marka see loo soo saartaa waa kan waxa weeye spread ta tigta saaraysa hadaan ka qaadno spread ma arkaysid bid iyo ask price ba arkaysaa oo labada qiimo gacanta hore iyo gacanta dambe ah like spread marka saartid waxaad arkaysaa spread iska inay ku soo gashay lacagtan inta saaran marka lacagaha qaybtood 6 iyo 5 iyo fuula lacagtu mar walba ay lacagaha inta badan major pairska spread ka saaran aad buu yaryahay cross ka spread ka saaran uu ku xigaa laakiin lacagaha exotics ka la yiraahdo oo wadamada soo koriyay sida Turkish lira iyo wixii la mid ah spread ka saaran aad u badan yahay marka waa khatar way spread ka saaran aad u badan wax laga yaabaa maanta dhan inuu adoo saxan xitaa inuu meel iska bixi waayo laga yaabaa marka spread ka lacagta waa lagu xisaabtaa akoonka na waa ECN marka taas keenaysa spread kiisa inuu aad u yaraado hagaag marka kan waa market watch oo isla fahnay hagaag waxaan kaloo isla fahmaynaa kan kale oo ah terminal meeshan hoos terminalku waa meeshaad ka arki lahayd balansiga lacagta kugu jirta adawaarta lacagtan 1200 baa ku jirta equity waa 1200 margin ku waxa weeye lacagta ku banaan si aad trade labaad u gasho okay marka lacagta oo dhan baa wada banaan maadaama hadda wax trade ayna ku jirin exposure ki baad arki kartaa oo suuqa intii boqolkiiba intee ayaad suuqa khasaare ahaan ugu jirtaa account history oo aad trade-yadii hore aad gashay marka salahan hadaan halkan soo yara furo aan maartay aan isku dayno inaan maxaa raadada halkan ay soo qabo waxa dhahdaa terminal aan market watch okay marka waxaan isku dayaynaa inaan galno lacagtan oo kale chart window chartiga soo furanaysa chartiga aan dhamarna soo furo marka ii bedel okay saarde waxaad aragtaa maxay lacagtan inaan trade gareyn karo hadda trade baan isku galayaa trade-kayga waxa noqonayaa buy buu noqonayaa lacagtan buy baan ku galay lacag waxaan qiimeystay inay kor aadayso marka buy baan ku galay okay marka sidaan u gali kartaa buy baan leenahay okay marka waa aragtaa haddana waxaan jiitay stop loss-kaygii oo hoos baan usoo jiitay waa $3 baan stop loss ka dhigtay TB-deedana waxaan ka dhigtay intaa double-keeda $5 baan ka dhigtay marka waxaa aragtaa inaan maxay trade hadda ku jiro marka trade-ka hadda aan ku jiro waa demo account marka demadu muxuu ku fiican yahay wixii waa tijaabinaysaa maalinta aragtid in gacantaada fadhido wixii aad wax ka faa'iidi kartid iyo aad account real ugu gudbaysaa inta koraysa real aadi maysid hagaag marka waan xiraynaa hadda account-kii hadda markaan trade ku jirno waxaad arkaysaa inay isbedelayso equity-gu waxa lagu fiirshaa xogaa balance oo ka duwanta equity-gu waxa weeye lacagta kuugu jirta oo lagu daray ama laga jaray lacagta aad hadda trade-ka ku furan marka trade-da ku furan haday balance yihiin equity-ga ku darsanaysaa way isbedelaysaa haday minus yihiin equity-ga ka jarjarmaysaa laakiin balance-ga ma laakiin markii trade aadan wadin balance-ga equity-ga waa isku mid free margin waa lacagta ku banaan oo trade-yada kale ku gari kartid marka waxa artaa inay ka yartahay lacagta kale balance-ga trade-ka hadaan cancelo hadda waxaad arkaysaa account history tago waxa arkaysaa maxay inaan trade-ka qasaaray hadduu plus ahaan lahaan halka plus inaan maartay 25 cent baan qasaaray marka inaan 25 cent ka badan aan faa'iido halka ku arkay ladaan faa'iideen marka qaybtan waxa la yiraahdaa terminalka hagaag qaybtan waxaan u dhahnay market watch hagaag marka xaggan waxa ku saaran maxay time frames kala duwanaa ayaa ku saaran marka haddaan weyneeyo yara weynee kan waa candlestick okay oo chartigan ku muuqda dhowr qaab baa loo matali karaa ama loo soo bandhigi karaa chartigan ku muuqda horta wax weyn ma waa price-ki halkaas ku gaaray adana halkaas ku gaaray adana halkaan ku gaaray adana ma garanaysaa price-ki way hadba meel gaaray waana aragtaa price number halkaas laga aqrinaya halkaas lagu aqrinaya halka meesha ku aadan baa lagu aqrinaya halka meesha ku aadan halka meesha ku aadan marka kaas la soo qaataa cross hair la yiraahdo saas loo saaraa hadba meesha aad maxay maraysid ayaa la saaraa hagaag marka chartigan dhowr qaab ayaa loo arki karaa waxa loo arki karaa as a candlestick hadda candlestick way sidaan markay tahay waxa loo arki karaa as a paris wixiiba paris bay noqonayaan sidaan oo kala ah waxa loo arki karaa as a line chart oo sidaan oo kala waxba laga arkay marka inta badan information ugu fiican candlestick laga helaa oo information ugu badan bixisa sababta candlestick wax badan bay muujinaysaa halkan waa time frame-yadii 1 hour haddaan doorto waxa weeye halkii candlestick wuxuu ka dhigmaa hal saac markay socoto dhamaanaya ma fahanti marka haddaan 4 hour ka dhigo maxay halkii candlestick 4 hour ayuu yahay haddaan daily ka dhigana waa maxay halkii candlestick halkii xabo candlestick waa xabadan xunta ah xabadan soo tiiba ayaa daily noqonaysa haddaan weekly dhaho weekly haddaan monthly dhaho monthly marka ogow xabadaas aad aragtid maaragtay daily-ga ah yaa waxa ku jira intaasoo kor la aadayo intaasoo jira hoos la aadayo ku jirta ma fahanti
marka selbi uu dameen ku dhamaatay laakiin adiga aase maaragtay intraday trader haddaad tahay sidoo kale su'aal anigu 1 hour kan ka trade gareeyaa intaan oo dhan baa wax laga 24 xabo yaa waxay ku tahay hal maalin bay ku tahay ma fahmi marka kana waa time frames arrinta labaad kuwan waa calaamadaha kala duwan oo la isticmaali karo oo wax lagu calaamadsado sida kan waa rectangle-kii waxbaad ku calaamadsan kartaa kan waa tagasti oo kale qoraal meel aad rabtina qoraal dhigatid halkan waxaad dhigi kartaa meeshan ayaad la bixi kartaa qoraal colorkiisa bedeli kartaa waa weyneyn kartaa ma fahanti Soomaaliya soo kale waa kan qoraalkiisa soo kale arrinta labaad halkan waxaa sidoo kale kaaga muuqda Fibonacci level ama Fibonacci retracement waxa la yiraahdo oo la jiito gaar baan uga hadli doonaa laakiin lacala hadda soo baxaysa laas kala soo baxaysa haddaad sheegayna properties-kiisa gashidna right click baa la dhahaa properties-kiisa la tagaa waxaad artaa ka bedeli kartaa hagaag haddaad inaad iska delete gareysa meesha guduudka aad tooranaysa delete baa dhahaysa halkan waxa lagala soo baxaa horizontal line-ka haddaad support resistance inaad samaysid Soomaaliya halkan oo kale dhag hadana soo qaado halkan oo kale resistance uu tahay meesha suuqa laga soo celin lahaa saas loo wala soo bixi kartaa halkan sidoo kale trend line-ka ka jiidan kartaa oo ah hadduu suuqu hoos aad iyo kor aad iyo daarta inaad calaamasatid marka waxaanu aragnay qaybtan dhan almost waa aragnay waxa kale oo jirta qaybtan oo aad suuqu lacala haddii aad rabtiin gadaal noqotid gadaal uma noqon kartaa haddii calaamada ka ku saaran tahay gadaal uma noqon karto mar walba gadaal aad uu soo celinaya laakiin tigtada ka qaadno maxay waan aadi karnaa gadaal all right marka hadana tigtina saar waka qaybteeda horena waa la mid ma fahmi marka sidoo kale hadii chart badan ku furan yihiin tanaad ku dhufanaysaa chartski oo dhan waad arki kartaa hadda laba chart un bay furan intii hadba ku yihiin ayay ku noqonayaan marka hartina waa weynaysan kartaa taa rabtid oo hartina gashay arrinta kale indicator hadda rabtid inaad soo qaadatid indicator halkanaad ka soo gashan kartaa insert waxaad dhigi kartaa insert indicators kadibna indicator ka rabtid trend line hadda daartid maartay Bollinger Bands oo kale ama envelope ama maartay moving average waxaad gaada soo bixi kartaa markaad soo Bollinger Bands hadda okay waxaad arkaysaa maxay inaan Bollinger Bar ku soo daray haddaad indicator-ka inaad iska qaadid right click baa leedahay delete baa leedahay qaab kale oo soo saari kartaa right click baa leedahay indicator list kadibna Bollinger Bands oo kale aad u tagaysaa delete baa dhahaysaa waxaad aragtaa inaad indicator-kii aad iska delete garayso indicator-ka saas loogu soo darsadaa la isagana saaraa halkaas aan laga doortaa indicator-ka aad rabtid chart-iga iska xiraynaa haddana tanna waan xiraynaa hadda marka waxaad aragtaa inaan joogno 00 haddaad rabtid inaad waxaad u soo caashatid waxaad samaynaysaa view ba tagaysaa market watch halkan ka soo celinaysaa market watch waa aragtaa haddaad rabtid inaad chart mid kamid ah kacsatid right click baa dhahaysaa chartigi ayaad kicinaysaa sida euro USD as aragtid oo kale chartiga soo kacsanaysaa haddaad chart labaad saana dhahaysaa right click chartiga soo kicinaysaa Soomaaliya haddaad rabtid inaad wada fiirisid right click baa dhahaysaa waxa marka arkaynaa waxa weeye lacala ma rabtid sidaan hadda chartiga u soo baxayso ilaa adiga computerkaada hadda shaashada saan oo kale weeye waxaad rabtaa ii sheeg inaad chartigi aad wax ka bedbedeshid baa rabtaa chartigi marka si aad wax uga bedbedeshid waxaad u baahantahay inaad wax badan aad gudaheedii aan chartiga dhex galno waxa kaloo ka ilooba halkan meesha orderka halkan waan laga qarin karaa waan kaga soo darsan kartaa okay marka terminalkan aan soo cashano oo ah tii halkan noo galaysay sidoo kale mid kale la yiraahdo navigator aan soo cashano oo ah meeshii aad kala socon lahayd indicator-rada kala duwan Soomaaliya indicatorski oo kuwa hagaag marka chartigana marka aan soo cashano marka chartigana marka waxa aan tusayaa maxay sidee aad u bedbedelan lahayd oo aad uga dhigan lahayd waxa aad fahmi kartid sida hadda aniga aad igu arkay sidoo kale marka right click baan leenahay properties baan leenahay waxaan ka dhiganaynaa maxay black and white sidoo kale haddaad sidoo kale ka dhigatid kadib black and white marka dhahdid qoraalka foreground waa qoraalka waxaan ka dhiganaynaa blue baan ka dhiganaynaa saartid oo isbedbedelaysa waxa kala samaynaynaa bar up candle-ka kor aada candle kor aada waxaan ka dhiganaynaa maxay inuu yahay blue baan ka dhiganaynaa waliba waxa fiican dark blue waa wala oo soo noqon doonaa laakiin dan wax kala weyn marka medium blue iska kan hoos aada green oo ka dhigan kartaa okay kan hoos aada waxaan ka dhiganaynaa red bull candle waa candle-ka awoodda ku dhaqaaqa waxaan ka dhiganaynaa blue toss bear candle-ka
asna selka aadaya waxaan ka dhiganaa red line-ka waxaan ka dhiganaa madow ama maaragtay volumeska green bay noo tahay blue baa ka dhigan kartaa volumeku waa taa hoose okay marka kadibna wixii kale horta waa ku ciyaari kartaa waxbaad ka bedeli kartaa okay baanu leenahay marka hadda waxaad aragtaa maxay inaan chartskeeni aan bedelo marka aan ka dhigno candlestick usoo noqono candlestick time frame kana 1 hour oo time frame ka aan majorly aan ku trade gareyna ah marka dadka qaybtood 1 hour waxa laga yaabaa inay fahmaan inay slow tahay laakiin runtii 1 hour waxba slow ma sababta intaasoo saacadood markii la isku daro oo intaasoo shape-ka uu ku samaysmo iyo trade-kaada gelaysa marka shape-ka inta ku samaysmayo almost 1 day bay qaadanaysaa marka ma aqaan sababta dadku u jecel yihiin in shape uu samaysmo 4 beri marka 4 beri waqti dheer buu noqonayaa laakiin waxay ku xiran tahay qofka siduu u jecel yahay inuu trade gareysto marka technically anigu waxaan maxay ahay daily trader marka maalintaasaan jecelahay in lagu kala baxo waxayga marka maalinta ku xigtana inuu trade-ku ila gala meehe technically waxa weeye maalintaas gelinka hore yaa ma ku kala baxnaa wahagaag marka waxaanu hadda marka isla aragnay marka haddaan si fudud shorty brief sameeyo waxaanu isla aragnay sida halkan meel walba oo ka mid ah waxa ay tahay iyo sida loo sharaxdo sida indicator loogu soo darsado waxyaabaha laga marka hadda indicator aan ku soo darsano all right marka waxaan ku soo darsanaynaa moving average aan ku soo darsanaynaa halkan tagaynaa sande moving average all right moving average waxa aragtaa inaan soo darsanay periodkiisa oo 200 marka moving average baa maxay soo darsan marka periodka aan ka bedelo kan aan dhaho 50 period moving average halkaana aan dhaho blue aan ka dhigo close iyo exponential methodkiisu simple ama close buu noqon karaa simple ama exponential marka waxa aragtaa inaan soo darsaday moving average marka qaabkaas indicatorada loogu soo daro marka xisaabteennan maxay tahay xisaabteennan waxay ahayd inaad fahantid MetaTrader 4 ka sida uu isticmaali lahayd wax walba u baahan tahay si ugu soo dardarsan lahayd meelaha u baahan tahay sida wax uga raadin lahayd su'aalahan hadda meeshan kale waxa weeyday Fibonacci waa ka weyn si ugu soo darsanaysaa right click badhaysa customize badhaysa kadib halkan ku jiraan calaamadihii oo dhan hadda waxaan soo dari karnaa mid inaga maqan wareeg hadda mid wareegga kuma jirto Soomaali waxaan soo darsanaynaa insert man leena hagaag all right marka waa aragtaa hadda maxay waxaan soo darsanay wareeg ma fahmi sorry soo qabo waxaan leena okay si kale u shaqeynaysa calaamadan calaamad draw ellipse all right marka waxaad arkaysaa maxay hadba calaamadda rabtid inaad soo qaadan karaysid iyada arkaysa hagaag aad Fibonacci ku soo darsan karaysid aad indicator ku soo darsanaysid marka arinta labaad oo muhiimka ah rabinaan waa bibska sidee loo xisaabsadaa suuqa inta badan waxaad maqlaysaa intaasoo bib u dhaqaaqay intaasoo bib uu soo noqday intaasoo maartay dhaqaaqay see lagu gartaa waxa uu dhaqaaqay see ku cabiri kartaa waxa lagu cabirtaa wax la bibs marka waxa soo qaadanaysaa cross hairkaada waxa weey hadda waxa fiirinaa candle-kan intuu dhaqaaqay wana warka hada trade-kan maanta waa ku jirnay trade-kan already maanta waa ku jirnay trade-an ka faa'iido ka mid yahay okay marka soo qaad ilaa inta soo jiid 49 waxaad aragtaa maxay inaanu ka faa'iidnay 49 bib ama 53 bib u socday marka waxa aragtaa saddex god ba aragtaa hadda calaamadan yarta fiirso lambarada fiirso beddelaya saddex lambar baa ku samaysan mid waa hal baa ku qoran midna 520 baa ku qoran midna 1.1309 baa ku qoran marka kan 1.13 waa price-ka meesha amaraysid lambarkeeda okay de price-ka wuxuu xisaabsanayaa geeskan shisho wuxuu xisaabsanayaa midka dhexda ku jira 703 ku qoran tahay 703 points buu socday way ka dhigantaa suuqaas laakiin ilaan points anaa ma rabnay bibis baa rabnaa marka saddexda lama xisaabsado waxay xisaabsanaysaa labada hore 70 bibis buu socday marka halkaan soo jiid 89 bib buu socday soo jiid 100 bib buu socday marka xabadda ugu dambaysa marka xisaabsan ma faham saad bibiska u xisaabsatid taa ugu dambaysa xisaabsan inta hore xisaabsan marka hadda waa maxay waa 100 bib waa 79 bib waa 59 bib waa 21 bib waa 2 bib ma fahant marka wuxuu halka wuxuu ku jira waxa xisaabsanaysaa saabib ku xisaabsatid points ka xisaabsan maysid okay points ka xisaabsan bibs ka xisaabsanaysaa marka hadii loo qaybsho 0.301 xisaabta ku soo baxaysa ay tahay iyo ku soo baxaysa marka trade-ka wuxuu ku socday 54 stop loss-kaadu waxay ahayd halkaan oo kale ama meelahan oo kale aad geysan kartaa 40 bib ama wax la mid ah ayaad geysan kartaa ama 30 bib geysan kartaa TP-daadana waxa geysan kartaa waxaad geysan kartaa 50 bib ayaad geysan kartaa
weli waxaan filayaa inaan meelaha shishe ka soo galnay oo aan halkaan ka soo galnay meelaha ka soo galnay marka wuxuu noqonayaa sidaan oo kale 30 bib halkaana waxay ku noqonaysaa 60 bib marka waa times 2 marka stop loss ka waxa ku xisaabsanaysaa 30 bib 30 bib intee akoonkaada ka tahay taas u xisaabsanaysaa marka I hope waxaan rajeynayaa inaad fahantay dhowr qodob ko MetaTrader 4 ku seeyahay xeer kala soo degi kartaa at least inaad fahansan tahay qodobka labaad inaad fahansan tahay MetaTrader 4 sida loo isticmaalo waxyaabaha kala duwan okay adaart price-ka inaad yareysid adaart inaad soo dhaweysid okay iyo waxyaabaha la xiriiro dhan okay sidaad u geli lahayd trade-ka meesha wax ka fiirfiirsan lahayd sidaad u xiriir lahayd sidaad maartay ugu dhex wareegi lahayd marka arrinta ugu dambaysa waxa weeye alert waxa weeye inaad dhahdid suuqu meeshaas hadduu gaaro ha ii soo qayliyo marka right click baan leenahay alert baan leenahay marka waxaad leedahay suuqa hadda fiirsa suuqa halkaa hadduu gaaro intaynu wada sheekaysanayno uu dhaqaaqo uu ku dhaco uu inoo soo qaylinaya okay marka okay bala ku soo dhaco u dhawaaday wax yar buu jirsaday okay sama maqashaan uu soo qayliyay all right perfect marka alertiga wax loogu talagalay ilaan suuqa maanta oo dhan indhaha kuma hayn kartid waxa rabtaa in uu salaam halkaa hadduu gaaro uu ku soo qayliyo ama marka halka jabsan rabo ilaa maanta indhaha kuma hayn kartid marka kadib arta inay qiimeysid qaabka uu jabsaday kadib aad gashid marka alertiga saas u shaqeysaa right click ba dhahaysa delete ba iska dhaysa alertiga marka saas u shaqeysaa all right marka waxaan rajeynayaa inaad fahanto waxyaabaha aad ku shaqaysan lahayd ha noqoto trend line-kii support resistance-ga calaamadihii kala duwanaa wax walba oo aad maanta MetaTrader 4 uga baahan tahay inaad halkan ku baratay ayaan aaminsanahay marka kaliya waxaad u baahan tahay maxay inaad practice samaysid wixii ilaa hal habeen dusha kama qaban kartid laakiin waxa laga yaabaa waxyaabaha qaybta ugu cusub inaad practice samaysid isku daydayda all right marka arrinta ugu dambaysa waxa weeye akoonka halkan aad kaga xiranaysaa login ba dhahaysaa kadibna waxaad gashanaysaa maxay akoonkaada username userkii ee shirkadda ku siisay lambarkii ah sida kaas oo kale 5173 iyo akoonka lagu yiri ku xirmo oo adama 4 halkaas oo kale real 10 real 5 oo kale iyo passwordkaadi ayaad gashanaysaa marka sidaas noqdo ugu xirman kartaa okay marka insha Allah waxaan u gudbaynaa maxay qaybta su'aalaha ayeen insha Allah u gudbaynaa marka codka waa idin ka furayaa si marka wixii su'aalaha aad i weydiisaan iyo wixii aan iloobay si aan u sharaxna hadii la yiraahdo okay codka waa idin furay wixii su'aalaha qofka codka ka go'ay qoraal ha u soo qoro qofka kalena maartay hay weydiiyo wixii su'aalaha insha Allah hadii la yiraahdo هيا خيارتي إن شاء الله وعدك وإذا كفري مركا قفكي قبا وحي سؤال إن شاء الله ويدين كرادي لها يرادو وبرنامجك الله حرير إن شاء الله